Bismillah, halkan waxaan ku soo koobaynaa calaamadaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad ogaato marka aad sidoo kale magaalada ugu dhex kaxaynaysid gaariga. Calaamadahani waxay muhiim u yihiin in aad ogaato si aad ula falgasho gawaarida kale ee jidka haysta iyo si aad adiga ammaankaada iyo ammaanka dadka magaalada socda ama baabuurta ku dhex kaxaysanaya loo wanaajiyo. Calaamadahan waa lagama maarmaan markaad magaalada dhex socoto. Sidaas daraaddeed waxaan soo koobaynaa kuwa ugu muhiimsan. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doonto oo aad wax ka baran doonto iyo inay kaa caawiso mustaqbalka marka aad kaxaynaysid gawaarida. Calaamadda aan ku bilaabi doono waa calaamadda ugu muhiimsan marka jidadka la fiiriyo. Waa calaamadaas midabkeedu jaalaha ama huruudi yahay, waxaana la yiraahdaa hoverlid. Calaamaddaas marka waxaad ka baran kartaa oo aad ogaan doontaa waxyaalaha ay muhiimka ugu tahay marka aad gawaariga kaxaynaysid. Waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan qofka wadada soo galahaya, wadada adigu aad soo galahaya ayaa fursad ku siinaya ama fursad siinaya baabuurta wadadan maraysa ee calaamadan haysta. Calaamadan sida caadiga ah waxaa lagu soo celceliyaa oo isgoys kaste ayay imaataa. Inta badanna waxaa jirta mid kale oo midan joojinaysa. Calaamadan marka aad haysid baabuurta kugu soo dhacaysa wadada adigu aad haysid kugu soo dhacaysa inta badan waxay haystaan calaamada Vanisblick ama stop ayay haystaan oo waxay ku khasban yihiin inay adiga wadada ku siiyaan. Calaamadan kale ee ujeedaan iyadana waxaa la yiraahdaa hoverlid up horweye. Macnaheeduna waxa weeyaan in wadadii calaamadii aan soo dhaafnay ee hoverlidkeed wadadii ay haysay ay dhamaatay. Markay wadadaas dhamaato calaamadan waxay kugu wargelinaysaa markaa in ay dhamaatay wadadii weyneed aadna ku soo dhacday wadooyin kale oo yaryar oo ay calaamado kale ka shaqeynayaan ama sharciyo kale ay ka shaqeynayaan. Sharciyada kale ee la raaci karaa markay calaamadu dhamaato waxaa ka mid ah tusaale ahaan Vanisblick oo ah in ay wadada kugu soo dhacaysa ay baabuurtaas wadada ku siinayaan inay stop light leedahay, ama waxaa jirta oo kale inay jirto calaamada midigta ama hoverliderka oo macnaheedu yahay baabuurta midigta kaaga imaanaysa ayaa adigu aad wadada siinaysa, adigana kuwa bidixda kaa xiga ayaa wadada ku siinaya. Calaamadan saddex xagalka ah ee dhexda jaalaha ka ah dusha sarena ka guduudan macnaheedu waxaa la yiraahdaa Vanisblick. Vanisblick macnaheedu waxa weeyaan waa waajibka bixinta jidka. Waa inay darawalka wadadani calaamadan hor taalo uu istaago ama wadada uu siiyo baabuurta wadada kale ee weyn haysta. Marka si aad u muujiso inaad istaagaysid waqti fiican waa inaad soo gaabisaa oo aad xawaaraha soo dhintaa. Baabuurka kale ee wadada weyn hayana aad tustaa inaad istaagaysid. Marka haddii ayna wadadaas baabuur ku jirin waad soconaysaa, haddii kalena oo khasab ah inaad istaagtid haddiina wadadaas baabuur ku jiro. Haddii baabuur ku jirtona waa istaagaysaa. Haddii gawaari kale ayna wadada haynin saan sheegnay waad soconaysaa, laakiin waxaa khasab ah mar walba inaad labada dhinac iska fiirisid si aad ogaatid inay wadadu tahay ammaan oo ayna baabuur kale haynin. Calaamadan hortaada ka muuqata iyadana waxay kaaga waa warning for evacuation. Calaamad waxay ka digaysaa isgoys soo socda ama laba wado isgoynaysa. Adigu waxaa laga yaabaa wadada weyn inaad haysid. Calaamaduna waxay u samaysan tahay sida hadda ay kaaga muuqata. Marka macnaheedu waxa weeyaan waxaa kugu soo aadan isgoys ay gaadiidka wadadan soo galaya waajib ku tahay inay istaagaan ama ay mudnaan ku siiyaan adiga. Marka wadada baabuurta kugu soo dhacaysa waxaa waajib ka inay adiga wadada kugu baneeyaan, laakiin waa halis oo waxaa dhici karta inay wadadan ay baabuurta yani sharciga ayna u hoggaansamin. Marka waxaad u baahan tahay inaad taxaddar muujiso inkastoo adigu aad wadada leedahay. Calaamadan hortaada ka muuqata iyaduna waxa weeyaan waxay ka digaysaa isgoys halis ah. Waxaana inta badan calaamadan lagu dhajiyaa meelaha hoverliderka uu ka shaqeeyo ama sharciga gacanta midig uu ka shaqeeyo ayaa lagu dhajiyaa. Calaamadan badanaaba waxaa lagu dhajiyaa saan sheegnay meelaha laga yaabo inaan wax badan laga arkaynin oo ama waxaa laga yaabaa jidka ama waa meel mugdi ah inta badan oo nalal iyo wax saas lahayn, ama waxaa dhici karta inay calaamadaha geedaha qariyaan, ama waxaa dhici karta inay meel oo yani ay guryo iyo wax ku dhisan yihiin oo baabuurta ay kusoo gaban karta ay tahay. Marka waxaa inta badan lagu dhajiyaa meelaha hoverliderka ee calaamado kale ayna ka jirin oo gacanta midigtu ka shaqeeyo, laakiin ay tahay isgoys halis ah oo laga yaabo inuu shil ka dhaco. Marka waxay kaaga digaysaa saan sheegnay in calaamadahan ay qarsan yihiin oo ay halis tahay. Laga yaabo baabuurta xaggaas wadada kusoo dhacaysa inay yani ayna ogeyn calaamadan.
marka waxaa inta badan saan sheegnay meelahan oo kale ka jira xeerka gacanta midig oo ah baabuurka midigta ka imanaya aad wadada siinaysa adigu. Calaamadan waxay muujisaa iyaduna waxaa la yidhahdaa horta Tate Picker on Road waxaana muujinaysaa inaad soo gashay meel dhismayaal ku yaalaan ama meel dhismo ah sida magaalo oo kale ama tuulo oo kale aad soo gashay. Calaamadan waxaa lagu dhejin karaa meel kasta oo leh dhismayaal ay ku nool yihiin ugu yaraan 200 oo qof. Marka meel yaroo tuulo ah oo dhismayaal badan ku yaalaan ayay noqon kartaa. Meeshan oo kale markaad soo gasho waxaa weeyaan inaad xawaaraha dhinto. Inta badan magaalada dhexdeeda waxaa lagu kaxeeyaa markaad soo gashid 30, 40 oo kale. Marka lama ogola mar haddaad dhismayaasha noocan oo kale aad soo gashay inaad xawaarihii marka hore wadada weyn aad ku socotid ama ku dhow aad ku socotid. Waxaa u baahan tahay inaad si fiican oo taxadar leh u fiirisid calaamadaha lagu soo dhejinayo oo inta badan magaalada dhexdeeda markay sidan oo kale ay tahay 40, 30 ayaa lagu socdaa. Marka ugu badato 60 baa meelaha qaarkood lagu socdaa. Calaamadan kalena waxay kuu muujinaysaa in aad ka dhamaatay meelihii dhismayaasha ku yaaleen. Waxayna ku wargelinaysaa in dhulka dhisnaa uu dhammaanayo. Xawaaruhu wuxuu noqon karaa markaad ka baxdo calaamadan markaad dhaafto oo kale xawaaruhu wuxuu noqon karaa 70 ilaa 100 kilomitir saacadiiba haddii aynan jirin waxyaalo kale oo lagu sheegay. Marka calaamadan waxay kuu muujinaysaa inay magaalada ka dhamaatay. Xawaaraha wadada inta badan markii laga baxana 70 bay ka bilaabataa ilaa 100 ayay ku socotaa. Calaamadan labada baabuur ee iskarab socota waxa weeyaan Insurance for Good baa la dhahaa. Calaamadan waxay tilmaamaysaa in ay mamnuuc tahay in la dhaafo baabuurta aan ka ahayn mootada labada lugood leh iyo mootada kale aan ahayn inaad dhaaftid. Marka baabuur kale ma dhaafi kartid. Sababtuna waxay noqon kartaa in ama meesha ay tahay goolad ama ay tahay meel halis ah oo laga yaabo inaad baabuurka soo socda aadan arkin ee ka hor imanaya. Mamnuuciddu waxay khusaysaa wadada lagu dhejiyay calaamada noocan oo kale ah iyo meesha lagu dhejiyay calaamada C820 lagu dhejiyay ayay muujinaysaa. Marka waxay ka dhigan tahay calaamada haddaad aragtid baabuur ma dhaafi kartid aan ka ahayn mooto iyo wixii lamid ah. Calaamadana waxa weeyaan iyadana waa tii oo kale oo laakiin ah Insurance for Good for Last Pillar. Last Pillar ama baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada ayaa loo ogolayn inay dhaafaan baabuurta kale ee yaryar ama baabuur kaleba ay dhaafaan. Astaantu waxay kuu tilmaamaysaa marka mamnuucid ka dhan ah baabuurta waaweyn oo inay dhaafaan waxaan ka ahayn mootooyinka. Mamnuuciddu waxay khusaysaa wadada lagu dhejiyay calaamadan ilaa aad ka aragtid calaamada dhamaadka. Calaamada dhamaadka waxaa laga wadaa calaamadan oo dhexda xariijin laga saaray. Taas markaad aragto ayay dhammaanaysaa calaamadan. Labadan falaarood ee isdaba socotay midna casaanka tahay ama guduudka tahay midna cadaanka tahay waxaa la yiraahdaa Motor Traffic Hard Forward. Macnaheedu waxa weeyaan baabuur marka adigu aad ku socoto calaamada cad oo dhinaca falaadha cad u jeedaysa u socotid waxaa wadada ku istaagaya baabuur wadada ka istaagaya oo wadada ku siinaya adiga baabuurta ka hor imanaysa. Calaamadan waxay sheegaysaa in baabuurta soo socota ay tahay inay jid ku siiyaan adiga. Marka jidkiisa ay ku siinayaan waxa laga yaabaa wadada meesha iskaga soo dhacaysa inay meel dhuuban tahay oo laba baabuur isku dhaafi karin. Waxaa dhici karta inay dhinaca kale ee wadada ka xiran tahay dhinaca baabuurka kale ee soo socda ka xiran tahay. Marka xun baa jira oo wadadu labadiinaba ay wada qaadaysaa. Saa daraadeed markay calaamada casaanka ah qofka haysta ayaa istaagaya. Haddii dhinaca cas tahay adaa istaagaya. Haddii dhinaca qof kale ay cas tahayna ka kala istaagaya. Laakiin haddii ay jirto meel bannaan uma baahnid inaad istaagto si aad u dhaafto. Haddii macnaha aad ogtahay labada qiyaastaada ay kuu sheegayso inaad labadiinaba wada dhaafi kartaan adigu khasab ma inaad istaagtid ama qofka casaanka haysta khasab ma inuu istaago haddii wadadu idinku filan tahay. Waxaa la dhigaa meelaha ay dadku ku badan yihiin inta badan magaalada dhexdeeda inta badan lagu dhejiyaa calaamada noocan oo kale ah ama oo meelaha ay wadadu ciriiriga ka tahay ama ay ka xiran tahay ayaa lagu dhejiyaa. Calaamadan kugu muuqata ma aha dad tuugsanaya waxa weeyaan waxaa soo gashay waxa la yiraahdo Trenches Cut. Trenches Cut waxa weeyaan inta badan magaalooyinka waaweyn baa lagu dhejiyaa. Waa meelaha loogu talagalay in lagu qaado canshuur baabuurta soo galaysa magaalooyinka waaweyn oo kale. Waxa marka calaamadan aragto waxaad qiyaasaysaa ama waxaad ogaanaysaa inay ka horeyso meel lacag lagu qaado. Lacagtaas waxay noqon kartaa canshuur la qaado si ciriiriga gawaarida ama gaadiidka loo yareeyo. Inta badan magaalooyinka waaweyn sida Sweden oo kale haddii laga hadlayo Gothenburg iyo Stockholm oo kale ayaa lagu dhejiyaa. Calaamadan waxaa la yiraahdaa parking. Macnaheeduna waxa weeyaan marka aragto calaamadan buluugga ee P-da cad ee ku dhex taalo
waxaad ogaanaysaa in lagu ogol yahay halkaas inaad ku dhigato baabuurkaada muddo 24 saacadood oo xiriir ah. Xeerka asaasiga ah ee 24 saacadood ee xiriirka aad baabuurkaada dhiganaysid wuxuu khuseeyaa oo keliya maalmaha shaqada ee aan fasaxa ahayn, marka laga reebo maalmaha ka horreeya Axadda iyo ciidaha guud. Ciidaha guud waxaa laga wadaa maalmaha casaanka ah oo aan la shaqaynin sida maalmaha qaranka oo kale. Markaad calaamadan baabuurka dhiganaysid waa inay ahaataa maalmaha caadiga ah ee la shaqeeyo Isniin ilaa Talaado oo ayna ku jirin maalmaha casaanka ah. Marka xilliga aad dhigatay xilligeedii kale waa inaad ka qaadaa, haddii kale waxa weeyaan ganaax waa lagugu dhufan karaa. Marka calaamadaas saas ayay macnaheedu tahay haddii aan lagu darin wax kale. Calaamadan halkan ka muuqata iyadana waa baarkeerinka iyo hoverlake oo la isku daray. Marka hoverlake oo la hoos dhigay calaamadda baarkeerinka soo dhaafnay, inta badan calaamada waxaa tira la socota oo si hadda midda kuu muuqato oo kale ee tiradu la socota ayay la socotaa. Marka calaamadda hadda a-da oo kale ama eeda oo kale waxaa hoos taala tirada 8 ilaa iyo 17 oo macnaheedu yahay halkan waxaad baabuurka dhigan kartaa maalmaha caadiga ee shaqada Isniinta ilaa iyo Jimcaha 8 subaxnimo laga bilaabo ilaa 5 galabnimo yaad dhigan kartaa baabuurkaada. 8 wixii ka horreeya iyo 5 wixii ka dambeeya ma dhigan kartid bay ka dhigan tahay macnaheedu. midda kale ba'da ay ku qoran tahayna waxa weeyaan waa isla sidoo kale laakiin waxaa kala duwan midabka tirada. taas macnaheedu waxa weeyaan 8 subaxnimo ilaa iyo 5 galabnimo ma dhigan kartid. 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo laga gaadho ma dhigan kartid. waa mid inay kasoo horjeedaa marka. saa daraadeed xilliyada kale taas waad dhigan kartaa. tanna wixii intaas ka baxsan ma dhigan kartid. saas ayaa laga wadaa. wabilaahi tawfiiq. calaamadan marka waxaan ugu soo darnay waxaa la yiraahdaa local settings market inonvac market. marka waxaa laga wadaa marka aad gawaarida aad ku kaxaynaysid wadooyinka inta badan landsberg oo kale markaad ku kaxaynaysid waxay kuu sheegaysaa meesha aad aadaysid iyo dhinaca u leexanaysid. calaamadan waxaa la yiraahdaa calaamada goobta, waxayna muujinaysaa jidka loo maro meel ay tahay in aad marka hore midig u leexatid. marka aad u socoto tusaale ahaan kasoo qaad Fallon oo kale uma baahna inaad leexatid. marka laakiin dhinaca kale u leexanaysid waa inaad marka hore waddo midig u leexata aad qaadid, kadibna waddadii marka hore aad haysay aad hoos marta oo dhinaca aad u hoos martaa. buunda inta badan hoos mara. marka waxay ka dhigan tahay ooma leexan kartid dhinaca bidixda ah laakiin marka hore khasab waa inaad u leexataa midigta oo aad waddada kale ee haysay soo hoos martaa oo aad dhinaca ka aadaa meesha u socotay.